xulka qaranka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba isaga haray oo soo bixitaanka koobka qaramada qaaradda Afrika oo sanadka soo socda 2023 lagu qaban doono wadanka Ivory Coast kadib markii uu rabay wadanka yar ee Eswatini. Ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa soo bandhigay ciyaar xiiso badan ayagoo inta badan heysay kubadaha maadaama uu isbedel weyn uu sameeyay macalinka hogaaminaya qaranka Soomaaliya isagoo maanka ku hayay guuldaradii 3 gool ee Eberka ee lagu badiyay hoomka Soomaaliya. ciyaartoyda Eswatini ayaa inta badan ciyaarta ku jiray difaac adag ayagoo ka hortagayay weerarada isdaba jooga ay sameynayeen ciyaartoyda Soomaaliya kuwaas oo laga dareemayay firfircooni ka duwan ciyaartii lugtii hore ee ka dhacday magaalada Dar es Salaam ee caasimadda wadanka Tanzania. Soomaaliya ay ka faa'iideysan weysay fursadihii soo maray ayadoo xidigaha weerarka ay khasaariyeen 2 fursadood oo loo filinayay goolal laakiin aysan noqonin. qaybtii hore ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbardhac eber ayadoo ciyaarta ay ku gacan sareeyeen ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya. markii la isku soo noqday qaybtii labaad ciyaartoyda xidigaha Eswatini oo laga dareemayay in lagu soo canaantay qolka labiska ayaa isbedel weyn sameeyay ayagoo la wareegay kubadda heesashada ciyaarta isla daqiiqadihii ugu horeeyay waxay la yimaadeen goolkii ugu horeeyay ciyaarta ayagoo sii dilay rajadii Soomaaliya ka lahayd ciyaarta. Eswatini ayaa markaa la timid goolkii labaad ee ciyaarta taasoo sii xoojisay iska xaadirinta tartanka qaramada qaaradda Afrika. inkastoo ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ay soo bandhigeen ciyaar xamaasad badneed qaybtii hore haddana ma aysan awoodin in ay qaybta labaad sii wadaan si wax ugu bedelaan natiijada ciyaarta oo markaas lagu hogaaminayay 2 gool iyo waxba. ciyaaryahan Sakariya Xasan ayaa gool u soo celiyay Soomaaliya isagoo soo nooleeyay rajadii ciyaarta isagoo ka faa'iideystay kubad uu ka soo shaqeeyay ciyaaryahan Maxamed Awad. ciyaaryahan Sakariya Xasan waxa uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay xulka ciyaar rasmi ah waana kiisa labaad ee kulamada uu saftay xulka qaranka Soomaaliya isagoo dhawaan u dabaaldegay dhalashadiisa. isbedelo uu sameeyay macalinka Soomaaliya si ay ciyaarta ugu soo noqdaan maadaama hogaanka laga hayo ayaa taasi waxba ka bedelin ciyaarta. Soomaaliya ayaa labada lug laga dhaliyay 5 gool ayadoo dhalisay 1 gool sidaas ay noogu hartay oo soo bixitaanka koobka qaramada qaaradda Afrika.